cabdi daahir cawad wasiiru dowlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Somaliland oo maanta qaar ka mid ah warfidiyeenka kula hadlay xafiiskiisa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa wasiirku wasaaraddaasi ka fogeeyay eedeymo ay maalintii shalay ahayd ay u soo jeediyeen xubno ka tirsan ururka naafada ee marka magaciisa loo soo gaabiyo loo yaqaano SDF wasiiru dowluhu waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha wasaaradda uga qorshaysan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan waxyaabihii ay isaga celin lahaayeen dhaxanta isla markaana hooy ay ka galaan dhaxanta wasiiru dowlaha shaqada iyo arrimaha bulshada oo arrimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa shalay waxaanu qabanay maalintii disability-ga ama maalintii curyaamiinta iyo dadka naafada ah ayaa xafladoodii la qabtay run ahaantii xafladu si fiican ayay u dhacday laakiin waxaanu halka banaanka ku yar arkaynay dad cabanayay oo ka cabanayay maxaan ku dhahdaa dalada ka cabanayay taasina waxa weeyaan horena wax nagulama soo gudbin markii aanu meesha joognayna waxba nooma sheegin laakiin waxaanu aragnay iyagoo boorsita oo ka cabanaya taasina waxa weeyaan waa arrin khalada oo aan loo joogin 2 sano ka hor baa la doortay daladan waxaan leeyahay 2 sano labadii sanaba mar baa la doortaa daladan doorashadii qoladii lagaga helay ayay ahaayeen qoladii shalay joolo cabanaysay marka deedna daladan hawlo badan baa u qabataa naafada way u shaqaysaa way shaqada u raadisaa wixii ay tabanayaan bay u soo samaysaa hawl adag oo wanaagsan bay u qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim anaga wax nooga qorshaysan dadka derbi chiefka ayaan horta shaqo ku leenahay dadka derbi chiefkana waa aragteen oo in maxamed mooga ay joogaan ilaa 120 ilaa 100 aruura oo derbiga chief jirtay inay joogaan waxa kale oo jiray sanadihii hore sanadkan mooyaane sanadihii hore waxaanu siin jiray derbi chiefka iska jooga suuqyada ayaanu siin jiray dharka dhaxanta sanadkan laakiin maanaan siinin sanad walba siday wax noo soo galaan ayaanu u xisaabinaa marka sanadkan waxba maanaan qaybin laakiin sanadkii hore waanu siinay derbi chiefka meelaha chiifa dhar iyo hoy iyo waxay ka galaan maxaan ku dhahdaa iyo bustayaal iyo waxaanu siinoo kale maxaan ku dhahdaa jaakeeto marka laga yimaado hay'ado la shaqeeya ururka naafada bal waxaan weydiiyay wasiirka doorka ay wasaaradahan ka qaataan ururka naafada ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano SDF lane ministry baan u nahay lane ministry waxa weeye hawlahooda ayaanu u dhib yaraynaa aanu ka shaqeynaa eegada waa organization gaar ah oo meel u taagan marka wixii dawladda ay uga baahato ayaanu u soo dhamaynaa madaxtooyada kale waxay siisaa sanadkii walba ama 5 kun siisaa ama 10 kun siisaa kolbasi iyada qaybisa oo siisa iyadu anaga dawladdu nooma soo shubta lacagta anaga laakiin iyaga siisaa oo ku taakulaysaa run ahaantii dawladdan Axmed Maxamed Siiraayana runtii aad bay ugu dadaashay tan dambana waxaan jecelahay mujaahidku inuu ku dadaali doono oo naafada ugu dadaali doono anagu doorka iyagu waa lane ministry aanu nahay Liibaan Cismaan Cali Ariel TV magaalada Hargeysa